dawladaha horumaray annaga aan dhahno tay ahaan dad ahaan nagama tayo fiicna tira ahaan waa laga yaabaa inay badan yihiin cudud ahaanna way badan yihiin xoolo ahaanna way naga maalqabeen bay ahaayeen ilaah bay aqoonsan waayeen ilaa ay ka gaaraan khaasatan China uu ka yiraahdo rabbi ma jiraba kuwii horena maxay dhaheen namuutu wa nahya wama yuhlikuna illa dahr kuwana saasay dhaheen waan maartay waan joogaynaa adduunka caadi bay dhaheen waxan iska tabiici waay waa la iimaana waa la taga maana ilaahay abuuray ma jiray dhaheen ma jira miya ha waayahay iska celiya leeyahay corona kuwii kuwan ka horeeyay ee waqtigii nabiyullaahi Muusa alayhi salatu wasalaam ilaahay soo ma dhihin walaqad aatayna Muusa 9 aayatin bayinatin soo ilaahay ma dhihin ayada maxaa kamid ah Allah wuxuu yiri fi suurati al-a'raf farsalna alayhim at-tufana duufana ku dirna leeyahay duufaantu waa dabayl roobab wadata geedaha siibta guriyahana burburisa dadkana dabagadis way ku cibra qaadan waayeen wal jarada ugu darnay buu yiri ayaxan ugu dirnay ayax annaga waa nasoo maray Soomaaliya annaga waa nasoo maray laakiin wax ku cibra qaatay ila الان mala wal qumala injiran ku soo dirna lay injir sheekh waa jundun min jundillah injirtan yaryar oo arkaysid oo bani aadin ka gasha xoolaha gasha meel walba gasha jundun min jundillah hadii lagu salado in lagu halaaga loo tiri gala iyada ku halaagay wal jarada wal qumala wal dafadi' raha lagu soo diray raha waxa la yiraahdaa baalka markii roobka uu iska boodbooda aaranka qayli qaaqdu ku hay raaj tigadergan بوبة تجلكسني أوانس تجلكسني بعد أوانس كوربيس تجلكسن إنجيران تجلكسن إنجيران إنجيجيمي تبيك إنجيران ديجي راتوتك كوتجي وإنجير شيخ إنجير حيوان كما عزن ما إنجير مجرى وحي كل وحياة هنا أيضا والدم آيات والدم ديج الوصول ديج جرق عاقا وحانتا اللفيدي واديك أبريق قاد واديك وحن ديك وحول بديك مصيبة صوما شاك أبارا صد أمارت أبارا بدن بالوسل الذي آياته أبارا أمارت نورسونا أبارا الوسل الذي أنك وانا صومرتي أبارا نصومرتي دوفانا نصومرتي كذوذيا نصومري وحاي نصومري دينبوبا نصومرتي داعونا نصومري وهذا وحان جوغنا كورونا أيان جوغنا محان ودي منبق شيخ ميسان لهين عبر قادشو عادي ما marka musiibooyinkan ilaahay soo diro laba mid waay gaaladu waa lagu edbin mu'miniintana waa lagu waanin waana u noqonays 10 waay Allah wuxuu yiri subhanahu wa ta'ala gaalada markuu ka hadlaayay aayad walba oo soo dirna markay u imaado oo aayadaha anaga kamida kowniga way ka jeesan jireen mayna ku cibra qaadan jirin waa iska caadi baydaan iska caadi waa bi'shara waa corona maxaa loo bixiyay bi'shara waa war bi'shara hatta haday tahay bi'shara ali iyo dawladda ba ka weyn waa wax oo hadda maartay meelahan bi'shara la suubinaya county iyo maartay national government ay suubinaysma waa international virus fakada waa yadeh laakiin ana waxaan leenahay macsiyadeena ka dhalatay ذنوبتنا كدلتي عاصنمدنا كدلتي ما هنا شيء iska imaade caadi ma aha marka aayadaha ilaahay inaan ku cibra qaadana la rabo ma aha inaan ka jeedsanamay Allah wuxuu yiri waxaan tusinayna aayadaha anaga yaan dhinacyaha ka tusayna mashriq iyo maghrib mar intaan aayad ugu keenayna mar intaan kaga keenayna mar intaan kaga keenayna xitaa wax kale iska dhaafay naftoodan aayad maartay ka tusinayna buu إلى ما أي وعداتو كأوغادان حق ميشو كيمت الله وحيري ولله جنود السماوات والأرض الله وحوليها هاي عيدا كعرك أساقا إسكاله عيدا كدولكنا أساقا إسكاله إلهي وحوليها هاي عيدا عرك مامولا عيدا دولك جوغا
iyo kuwa kaloo meel kala joogo ilaahay on garanayo corona marka corona ma cirku ka imaaday ma dhulku ka soo baxay ilaah baa garanaya kibilaay cunaano jiiray cunaan iyo waxaanu ka dhashay kulli waa mal awal meeshu ka yimid ilaah baa garanaya waa ciidan ilaahay Allah wuxuu yiri subhanahu wa ta'ala bani aadamka markii aayadaha la soo diro la arko way kala baxaan qaar baa ilaahay xaq waafajiya dhahaya min Allah buu nooga imaaday dibkan ilaahay aan u tawba keenno caasinimadeeda dunuubteena dhibaato aan geysano ay ka dhasheen waxaan ilaahay aan u tawba keenno kuwa dhihi kuwana maxay dhahayaan may waxaan waa shay iska caadi ah Allah wuxuu yiri ala kadalika yudillu Allah man yasha wa yahdi man yasha ayad markuu Allah soo diro dad buu Allah hanuuniya dadna way baadiyoobaan oo lumaan wadada xaqay ka lumaan wama ya'lamu junuud rabbika illa hu ciidanka ilaahay isaga baa garanay cid kale garanaysa malaha ciidanka ilaahay isaga garanaya wuxuu rabo ciidan ka dhigta wuxuu rabaa dadka lagu halaaga wama hiya illa dhikra lil bashar ciidanka ilaahay markii la soo diro ayadaha markii la soo diro bani aadamka waxay u tahay dhikra baraarujin xusuusin waad kibirteen Soomaa waasan taagteen Soomaa qadab midal idinku saladi markaasa international community oo qayliyo huwa loo qayliyo sidaan hala yeela marka waxaan soo waday viruskii yaraa corona la dhahayay magacaan nimanka u baxsaday maxaad ugu bixisayna la yiri magac inta ka keenteen waxay dhaheen baalka hindhaha lagu ma arko microscope markaan ku fiirina shaybaarka markii lagu fiiriyo waxa la arkaa bahal koofi ahaan oo sidaas la arki viruski saas oo maanta is dul saaran magac meeshun baan ka keenay dhaheen marka injir waa la iska aruurini waa la buufini raha waa la line waa la buufini dabeelaha godadka laga geli hadi corona inta ka geli waa ka safiri afka la soo xirto masaayidka iridiisa waxa ka dhacay waad arkayseen waxaano idil waxa weeye waxaan anaga geysan rabbi waa inaan u toobo keenan u laabano waa in markii dhibaato noocan ay dhacdo dadka waxa la rabay in la jilca ya Allah la xusuusto lagu ooyo gacmaha loo taagtaa la rabay laakiin dadka qaar kibir bay ka qaadeen beeshara kala ka dhalat jamiil marka ilaahay markuu soo diraayo corona kalimeehe caalamka anaga hadda waa nagu yariyahay waxyaalo yar yaro maartay sardhawana la xogo geesun baa nalaga soo mariya ma ahane toosno mayna soo taraarin hatta ayaxi geesun buu naga maray meeluhu marayna waa lagu qayliyay xogaho daacuunka maartay magaalada uu ka eka wax weyn saasoo soo gaaray mala intaan waa naxariis ilaahay subhanahu wa ta'ala wallahi waa naxariis ilaahay subhanahu wa ta'ala magaaladan Mandera alina inkiis daacuun ba halaagi jiray intuu ka soo gali dam waxaan ilaahay baa wata moogtahay sheekh dad baa hadda maalintii koodiyo meel ka jabeen ila alana jabsan way kamilaayeen waa imtixaan markuu walaalayaal imtixaanaadka namaraya oo mar walba sanad walba laba sano kadib imtixaankoona soo marahaaye niman yahow wax baa soo socda ma dhulkaana lala gooyin doonaa ma samadaana lagu soo ridi doonaa duufaan miyaana lagu keeni doonaa daadna waabana soo maray ku ka daran ma imaan doona ilaah baa og laakiin wax weyn baa soo socda waxaan shaki ku jirin sababtoo ah subax walba waxaad magaalada ku arkaysaa dunuub aan weligeed la arkin caasinimo aan weligeed la arkin dhaqan xumo oo maartay horay noo soo marin oo gaala xataa ayna ku dhaqmaynina ilmaheena ku dhaqmayaan weliga intee lagu arkay gabar laba jira nin weyn uu kufsanay inta ku aragtay niman yahow waxaa ogtahay xoolaha dameer iyo waxaa la yidhi idaha xataa haddii la qaniino waa un aamusnaanaya ilkaha isku dhejinayaan geed ay ku dhiganay raadsanayaan ma cabaadaan aricadka iyo geela iyo looda waxaan waa cabaadaan annaga xataa idaha waa ka darannahay ma cabaadnaba intaanoo musiibaha magaaladan ka dhacayso wax ka hadlaayo lama arka maxaa igu wacan maxaa ku wacan raalli miyaan ka nahay ma innagaaba suubinooba ogol
حاين داري صدق ضمير له عقل له دين له أو مارتي نقل له من هنا سيكون هذا الشيخ مقالدين أنت أسوكيس صدق بلود جودة إلا أفرتن كيس لو سوق بنا معلوم ولا مركا كورونا كعب هذا ثاني كنت كوينا صوصعد عن إلهي أتوب كنا ليب كان عن كور سجنا والعلماء يا يري علماء بمقالة مسؤول كا يا يري ما ارتجى الدولة بس مسؤول كا نول بإساق إلهي مسؤول وصاري الله وحيري الرسول وحيري كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته عن وحل الراعين المسؤولية عن لهن ومجرت مفروض لي حتى مارت علاقتين إذا مسؤول كتاعي فوض لي ما تقدر أن نوين وقرية جنفور له يا ساهي حل باكو صار والحلك هذا جدو إلهي كعص حتى هذا وحكر هذا مثلا ماسك محل حرتا ماسك محل حرتا ولا لو إلالي أنا روانكو إلالنا الوضع ماسك أنت أصل حرتا فإذا كلمة تركب كي مقالة إنه كبح حمارك تاني ماسك يلاي فإذا وين بقول لهم و10 دربا ندين قال لها كورونا فإذا أن كهلني أدى يبلنته تنقسم أسنت سنة كورونا نايين دليل كبسة أنا هذا مارتي أنا نبت كهلني بقى مركب حنكوا ذا وهذه أنا على الأقل قولي يجي المهجة بس أن قبصده هذه أنا قبصتي مقالة إنه ويبدبالي المها مسلم كانوا ويبدبالي لها يعني أنا جوان سوسي دي أنا جوان سوسي دي سي دونت وين لقى دونتي وان ولا هلاك سنة حافظ يدك كديس أما أن كديس نما يوهل دون بانسارنا دون تان ودومين هينا وقدا هينا بيان سوق جلين هينا دون تان بدبادينه دون تان ومندرا وحال جوري ورجوري أنا بدبادينه وحالو أركي جري دولتها معرتي عالمك markii arrin dib ay suubiyaan isha dadka ay jeedinayaan balaay kale meel kale ku suubinayaan annaga hadda markii arrinto musiibada oo imaada meel kale aan tu kala ka jeexnaaba hadda sheekada dhinaca corona waa ka wareegtay fasaadki iyo zinada iyo musiibada iyo daroogada waa ka wareegtay meel kale aad hadana aan ka soo celin hoos aan u soo noqon oo magaalada aan sidaan u dhaan ilaahay aan ka yaabno subhanahu wa ta'ala marka dawladaha caalamka naga awood badnaaba wax ka kari waayay annaga marka waxaan idin leenahay ilaahay aan ka cabsano oo sidaan aan isu dhaanno magaaladan maartay dadkii iska lahaa waa annaga haddii hadda aan badbaadinin weligeedana ma badbaadayso ilaahay aayadahan wuxuu u soo dirayaa baraarujin waay cabsi gelin waay Allah wuxuu leeyahay wama nursilu bil ayati illa takhwifa aayadaha iskama soo dirno ayadaha sida corona iyo dhulgariirka iyo duufaanada iyo dabaylaha xoog leh kama soo dirna waxaan u soo dirnaa takhwiif cabsi gelin waay qaal ilaahay aan garanaynin ma ka cabsana katrina iyo tsunami iyo magac balaayo iskala bixi kan muslimka ka cabsanaya waqti hadda laba habeen laga joogo bisha kuma ma aqaan inaad aragtay fermanera bisha laba jeeray يعني ويدنتي ويرسون ولاتي ويدن سنة إلا 3 ساعة هذا نسيدن سنة برتي هذا بالوايد وحنا هذا كيسان نمن يهو عالم كخطر بكسوجيه ما أريده أنا جاينا نتاجنا هاي ذاتك وحقوم ملاينا إنا نقندون إلهي نجمع دقة ذاتك أيوة يتاجين ساعات قيامة فرقه ذاك دعي نعوذ بالله من ذلك ساعات قيامه وحيكون دون داعي سابق النبي صلى الله عليه وسلم أشرار خلق الله ومدى الله أمري وملاها وبشر بدن يكون دون داعي دون تابو يري ساعات قيامه مرك إلهي نجمع دقة لكن على ملاها ويسوس ترى هيان معجزوينك ويسكدب إيمان هيان مصيبوينك ويسودب الصعدان نمن يهو إلهي أن كيابنا والإلهي أن كل أولا بنه إلهي أن برنه الله أن عابدنه كتاب كيس أن داوك الردن داوك لمجد داوك له الردن داوده كتاب كان يكجرت قلوينك إلا هلاقي سببه الله هلاقي استقى شيقي كوة بدبالين سببها يكون بدبالين كتاب كان نو شيقي والكتاب كان aan maartay aan iska halmaamanay xagga dhignay aminkii mahrada la akhrina iyo aminkii cunugu xanuunsada 10 isbitaal la soo mari ka gadaal lagu tufay intaanan ka haysan kitaabki looma tirigelin kitaabkan sidaas aan kitaabkan u soo noqono Allah wuxuu yiri
dadka markay caasiyaan adduunkan ku cadaabna cadaabkii weynaaye ka hor buu yidhi alla subxaanahu wa tacaala cadaabkii jahannama ka hor yaan adduunkaba ku soo cadaabnaa baa layidhi muxuu yidhi alle walanudiiqannahum min alcadaabi aladnaa duuna alcadaabi alakbari danta laga leeyahy waa maxay lacallahum yarjicuun cadaabkii weynaa intaan la gaarin ka hor cadaabka weyn ka soka ayaan mid kaloo kaa ka yar aan ku qabannaa buu yidhi corona baaba ka mid ah cadaab inuu yahay dad badan buu halaagay dhaqaalihii buu dhulka dhigay dadkii buu kala reebay ilaa ma aragtay qofkii hergab ku dhacsaan qufac isugu reebayna kiliyaana madoobaaday haatoo qufaasuuf kaysa dhawarnu nami tugtina kale jabta feeraha dadka jabsan liskama warqabo waa cadaab Allah wuxuu yidhi yaa ka dulmi badan oo ka gardarro badan ruux maaragtay la xusuusiyey lagu waaniyey aayadaha alla subxaanahu wa tacaala deedna ka jeedsaday oo madan ka gelin alla wuxuu yidhi mujrimiinta annagaa ka aarsanayna mujrimiinta annagaa ka aarsanayna ilaahay argoosigiisa miyaan ka baxnaa nimanyo ilaahay argoosigiisa kama kacno cadaabkiisa uma bareeri karno xitaa iska dhaafe imtixaankan yarkana lagu soo diraan wax ka qaban karin marka aan ikhwaani aan ilaahay u laabano subxaanahu wa tacaala waad u jeedaan caalamka ninbaa qodax waxaa la yidhi intii tagtiisay ku tagtaa magaaladeena Mandheera haddaan u imaano fasaadka aad buu u batay haddadan aan hadlayno fasaadka aad buu u batay odayaashiina magaalada jooga markii maarta arrin qabiil jirtana bokoorooyinka wata culimadaad ku dayseen culimo tabar ma hayso dawlad ayaa tirahdeen dawladdiina waa annaga waa idinka banaankan iyo jidkan qaada oo galabihii meelahaas aada markaasaad dhihi doontaan wax baad arki doontaan insha allahu tacaala niman yahow ilmo lama haayo ilmo iskuul laga soo xiray madraso la soo xiray dugsi la soo xiray aabbi iyo hooyo aan lahayn maxay noqonayaan war dameer aad aragtay oo aad leedahay hilibkiisa la cunaynin caana laga lisanaynin ayaaba la dabray yuusan dhumin daraaddeed namu fi harraysata kaanatay ilmaani sayalabaw numale harna mirbi ninjira wanisu naqlimit ilma yani xaynto yaro ari buu leeyahay laba cunugu raacina salaadii حتى كون حافظها جوجا هل كنا فاريا كنت شلنا الوراعيا المهنة فرعان كقادر ور إلهي أمر كيس بدنا والحوالها هدي أي دنتان والعني ولا قدري عنقان بيرك هذا هلب كذا هدو فساده خسارة نوعيبة بسوقاري ما كني ما يهو إن هندها أنفرنا إلهي أنك عبصنا إلهي أنك عبصنا مسؤول عن هاي magaaladaana mas'uul ka nahay gurigaanaga mas'uul ka nahay shacabkaana mas'uul ka nahay rabbi aan ka cabsano subhanahu wa ta'ala adduunka ma ogtahay Soomaali waxay tiraahdaa gacmuhu wada jir bay wax ku qabtaan gacmahan aad arkaysaan wada jir bay wax ku qabtaan maanta hadii aan dhahno midalan dawladda gabanaha weyn gabanaha kaligiis waxa qabto waxa qaban karma intii wasiiradiisa hal la shaqeyn waxay qaban karaan ma laha shacab la'aan wax soconaya ma laha marka bulshada ha hagaagto waxa hagaajinaya annaga inta fadhida bulshada lagu sheegayo waa inteena inta fadhisa xanu malayna mid u yara hal xaasile oo 7 ilmo ugu yeeray 7 ilmo qaba bulshada inteena waa bulshadaas niman yahow aan bulshadan badbaadino wallahi thumma wallah musiibatan ka weyna soo socotay intayna nagu iimaan koor war aan ka gaashaman hadda ka hor nabigeena calayhi salaatu wassalaam markii la soo diray tolkiisii ay dayriyeen ya aroortii buu ilaahba amartii waxaa lagu yidhi fasdac bima tu'mar wa a'rid 'an al-mushrikiin xaqa dilaaci baa la yidhi bannaan la imaw waxba ha isqarqarinin ashuunka aad ku aadamaysid daa waqtiga waa dhammaaday buurti safa ayuu koray markaasuu qayli waa sabaaxa reer hebel wuxuu ku yidhi niman yahow soo ima taqaanaan haddaan idin idhaa buurtan gadaasheed ciidamaad jooga farda wataan idin weerari rabo halaagi rabo beentay ma iga rumaysanaysaan buu yidhi habayde waa ka rumaysanayna allen been kaagama baran run baan kugu naqaanay marka waan ka ogolaanayna wuxuu yidhi cadaabka ilaahay baan idinka digi wallahi hadda musiibo weynaa nagu soo socto walaalayaal war dhalinyaro istaaga odayaalo istaaga culimo istaaga
madax iyo dawlad istaaga dalkan magaaladan badbaaday u baahan tahay haddii magaalada ay noqoto cidna uma maqna ceelna uma qodna magaaladan yaa iska leh magaalada sheekh annaga iska leh alxamdulilah ilaahay baa mogtahay marba wax baa imaada haddii security laan ay imaado annagaa eedana haddii dhibaato annagaa eedale sababtoo annagaa degan yaa way qofka ka imaanay meelahaas annaga waxaan maaragtay edab ku yeelanaynaa on markii maaragtay dawladda ay guruumo soo qaadato dadka qaar raayaha la qabto markaasaa nabad la keeni markaasaa magaalada laga hadlay saas maa sheekh annaga gaarimakoona maxaan u noqonay gaarimakoona moogtahay in la riixmaane ma soconaay annagana gaarimakoona typically saasaan noqonay ilaahay aan uga yaabno arrintan ee aan maarta subinno corona haddaan usoo laabto maxaana laga doonayaa culimadan maxay masaajidda dad ugu dhibayaan niman yahow waxaad ogaataan culimada dhib ma wato col hadduu imaado Soomaaliya waxay tidhaahdaa dabayl hadday kacdo nin walba bendhiisu qabsana Soomaa yo buu bendhugtay namu maanta namu maani ilisa ayadoo isiga socod ani hindhahaada kuma qabanaay culimada awal horaaba qarka loo taagna waxa la yiri hay'adaad shuruudi raaci waysaan culimay waa leedin xiri marka culimada yaan la dhihin xaysaan u yeelayaan iyo maxay masaajid nooga ciriirinayaan iyo maxay gurigooda ugu dhigeen iyo ayaga kaligood maamula maya xilka aduu ku saaran yahay anuu isaaran yahay alxamdulillah jamaacan hadda haysana 3 bilood jamaaca maana soo tukanin yaan la iska hadlaynin Mandera West oo tan ah magaalada Taakaaba waa loo soo wada xiray masaajidii runtaan idin sheegi maxaa loo soo xiray maaska soo qaado imaamadaadana soo qaado war awal hore Soomaali baan ahayn salliga tunku noo saarnaan jiray aan ku soo celino nabad baa ku jirta maxaa ka halaabay salligaada la imaaw maaskigaada soo xiro masaajidkana imaaw maxaa laga hadlay intaas la isku haysta aan ku dadaal waxa kale oo nalagu haystaa annaga Soomaali hadaynu nahay markaad fiirisid caalamkan kale dadku ugu diin fiican diin ahaan hatta Sacuudiga tag annaga un baa ka diin fiican dhaqan ahaan hadii la yiraahdo waxay nooga rooyihiin Sacuudiga bilcaantooda banaan lagu mark intaanay nooga rooyihiin laakiin dhaqan ahaan iyo diin ku dhaqmid iyo xijaab qaadasho caalamul islaami wax Soomaali gaaraya lama helay taan nicmo annaga aan qabno way had dhinaca kale hadaad fiirisid nadaafad ahaan annaga u wasaqsan in Nairobi yaan 91 aan tagay mar isliidan hadda dabka noqotay oo kulaatay waa la dhaxmoon jiray Soomaali hal iyo 3 hotel oo kale ka jirtay magaalada markii aad fiirisid qashin ma lahan jirin maanta islii qashina loo guurahay waana kulaatay ma aqaana birtan karaayada ay wataan meed dhulku kuleynaysan ma aqaana Soomaali nadaafad xumi magaaladeena Mandera ay kamid tahay wasaqa adig gurigaada ka soo qaadi jidkaad ku soo daadini muslimka sidaas ma qofka muslimka sidaas ma dhaqan islaamna ma ahaba qashinkaaga adaa iskale gurigaada ku gub dawladda markii ay yaabto waxay tiri meela pointan idin subinayna gaariyan subinayna haama la dhigay haamihii ayagoo loo jeeda jidka lagu daadina jidkan hadda waa xirmay jidkan istaaf u jeeda waa xirmay ku kalena waan u jeeday ma xasuus hadda meeshu ahaa isagana saas oo kale u xirmay marka niman yahow magaaladan annaga iska leh bilcideeda aan soo celino waxba yaanan dad kala fiirinin adi isfiiri gurigaada ka adkaaw waagi dawladii mooy annaga Kenyatta ilmaan baahayne sanadka markuu dhamaado taariikh koow ninkan gurigiisa raangi marinin waa la ganaaxi jiray waa la soo qaban jiray guriga every day hor iyo gadaal iyo laga xaqi jiray ninkan xaqin najiif waa dul taagnaan jiray waa la xiri jiray hadda dawladii baa la waayay masaakiin la noqday marka waxaan idin leeyahay niman yahow nadaafada aan ku dadaalno nadaafada dadaalideeda waxay dhaheen corona waxa la socda gacmaha dhaqda ma corona nafaray mislaha baa nafaray rasuulkiisa nafaray 5 jeer weystaysan lagu yiri 5 jeer aan gacmaha dhaqana markaad wax cunaysaan gacmaha dhaqdaa la yiri markaad ka baxdaan gacmaha dhaqdaa la yiri musqul markaad geesid ka soo baxdid gacmaha dhaqaana la yiri idan almuslimu nadiif dائما qofka muslimka ah diintiisa practice rasmi ku suubinaya waa clean been yaan lisu sheegin intee marka wax ka jiraan waxay wax ka jiraan annaga dhaqan xun aan qabnaa oo ah qofka qaaxo iska tiri kitaabo uma raadinayo waa soo bixin misbaa intuu ku tufi markaas uu saas oo dhigi sidaas oo bun loo dubahan
qaaxadii uu gacanta ismarin hadhowna anuu igu salaami waa idab dari sheekh idab dari waay corona maaha TB aad qabtaa gacantaadaad ku tuftay haddana aad ismarisay anigana waa igu salaami idab dari waay islaamka waxa weeye nadiif waa sheekh diinta islaamka yaan la ceebaynin maalin baa anoo meelahaas Mandera West wax ka subsanaya kuwa shaqaale ah iyo fuundi madow baa isla joogay kuwa marka diif iska soo bixay shaqaalaha maartay intuu saa tuuraybo maartay maradi saa u mariyay kuwii waxay dhaheen ana raashin u karnaa wuxuu raashinkaada ma cunayna adiga cun saxa kitaabo ma isaga bixisid waa gaal ma soo tukanin ma soo weysaysan wiji ma soo dhaqan ma istijoone maca dalika inuu gacanta isaga tiimiyo diiday waa ka yaqyaqsoonaya adigii muslimka ahayd maartay nadiifnimada laga rabay aaway marka niman yahow waxba yaanan maartay waayahan waxyaalaha laga tagay aan idin sheegi waxa kamid ah rumayga kamid ah dadka ma rumaysan had nin rumay jeebka ku wato ama magaalada dhexdeed rumay afku ku hadii la arko reer baadiyan intuu ka imaad hadii sigaar magaalada lagu dhax watana waxa la dhihi wax saa u fiirnay xataa ma la reer magaalo waa caadi idab darri way tan nafteed bimaana qofka aftaada ku tukanaya wallahi afkiisu urkiisa la taagnaaneen islaamku waa diiday sidaas basal ama toon xalaal mise waa xaaraan xalaal waay wuxuu ilaahay dhulku ku bixiyay qudaarta lagu darto nabigeenu wuxuu yiri ninkii basal soo cuna ama toon soo cuna masaydka naga yuusan imaanin buu yiri ha ka dheeraado masayd maxaa shirkeeda la nacaya malaa'ikta diidays waxay malaa'ikta diiday bani aadamkana waa ka daran yihiin adoon afkaada soo rumaysan baqti kaas waa uraay sigaarka soo cabtay mid la damiyay ka daba geysay kulligaada soofkan ku amay safka soo gali war ilaahay ka cabsado ilaahay aan ka cabsano niman yahow nadaafada aan ku dadaalno runtii bulsho waxa weeye islaamka asal u ah ruux hadda la soo islaamay nuguma jiro oo asal baan u leenahay nadaafada marka taa aan ku dadaalno jazaakumullahu khayr hadii aan idinku talax tagayn hadee wax un baan sheegay ma aan idin malaynina waa saalihanaysan waxyaalaha laga rabo wax way ihtiraajaat waxyaalaha dawladda ay inoo ishaartay farta ku fiiqday shay hebel yeela hadaan yeelna wax naga halaabaya malaha kala fogaanshuhu culimada islaamka ninba wax buu ka sheegay hadda inaan ka hadlo ma rabo dadkeeda ay qabtay ani imaam ma yihi laakiin dib haduu imaado wax walba waa la subin karaa Soomaali waxay dhahan baahiba maxay dhahan waqti loo cuna Soomaa taas maamaadaas nin walba waa garanaa Soomaali ah baahi qofka haduu baahdo wax uu cuno waaya nafta ka bixi rabto doon faar socda haduu arko waa goosana waxa laqa calooshu ka buuxsana waa ka dhaqaajina maxaa doon faar waa xaraan 7 jeer abl iska dhaqaay waqti waa xaraan maxaa loo cuni dibka keenay dibkaana u xalaaltay ad-daruratu tubihu al-mahdhurat baa la yiraahdaa marka yaani waxa arkay gaalnimo ma waxa shayga haduusan gaalnimo keenaynin dadka ku ceebeynay waxayna dhaheen maartay arrimaha hadda aan sheegaynay waxyaalo badan oo diinka hadda soo bisaan oo diinta islaamka ay ogoleen way iska jirtaa guriyaheena aan laazimno guryaha jooga leeyahay wareega daaya 1441 sano ka hor amaba maartay 40 sano amaba 1432 sano ka hor yu nabigeena wuxuu ku yiri nin saxaabi ah yaa su'aal weydiiyay xadiidkan aan ku soo khatimay insha Allah ta'ala xadiidka waa Uqbah bin Amir baa soo wariyeeyo wuxuu ku yiri nabiga Ilaahayow waxaad iga warantaa buu yiri maartay faman najaat waa maxay badbaado yiri badbaado waa maxay badbaado maxaa lagu badbaadi dhibka adduunka musiibooyinka balaayooyinka maxaan ugu badbaadnaa buu yiri cadaab maxaan ugu badbaadnaa cadaab ma rabta inaad ka badbaadid dhibaato ma rabta inaad ka badbaadid nabigu wuxuu yiri amsik alayka lisanak arabkaada qabuul shikawlimi arabka qabo marka arabka maxaad ka fahmaysaa meeshaas arabka shayga koowaad oo bani aadinka halaaga waa xadiid kale wuxuu ahaa ma waxa jira la yiri shay dadka naarta ku xaabiya wiji naarta ugu daadiya waxaan ka ahayn al-famu wal-farju aw kama qala sallallahu alayhi wasallam arabka iyo farjiga labadaas dadka naarta ku aruuriso nabi sallallahu alayhi wasallam marka arabku shay xun waa arabkeena aan ilaalino
carabkeena yani mawduucan ka hadlaya carabka intay isaga yimaadeen waxay isaga yimaadeen been baan sheegaynaa maxaan dhahaynaa maanta magaalada Mandheera 8 lagu arkay corona qabto qofkoo socdaa la arkay kaa Soomaa kii darad corona ku dhacay sheekh dadka in la midibto corona ma aha wareenta dad ku soo dhici jirtay TB dad ku soo dhici jirtay kama xuma kana corona waxun ma aha waa iska hergeb waay waxun ma aha dadka yaan lagu karantiilin dadka yaan lagu bahdilin ninkii meesha iridaas maartay isolation center meelahaas socdaal taagan hadii la arko ma qofa inta kaaga jira biridan wax salaamay ma laha sheekh islaamka saas ma qabo saas ma aha sheekh aan isilaalino dadkana yaan la ceebaynin waxan waa imtixaan ilaahay xaqiis ka imaaday nin walbana waa ku dhaca Mandheera 100% waa qaban corona isbitaalka un baan diidanahay ma ahane kuwa dhihi waa ergeygu qaba marka ma isbitaalka tagtid wallahi alo wuxuu yiri hadaan isbitaalka tawaaba la qabani wallahi xaray kama bixiyo ilaaniga isolation quarantine kama bax marka waxaan ka wadaa carabkeena idaacada dadka laga fidiyo dacaayada aan deynaan ku wada carabka aan qabano oo dacaayada beenta propagandada aan deyno finnada dadka la isku dhaxjiro hadda maanta labadan beelood hadda isku haya maartay dhinacan la fiiyo ceelwa dad baaba riwaayada ka bixiyaba oo maartay hadda ma u galay geerka u galay fataniin dadka afuufo dabshid badan ilaahay ka cabsado dhalinyaro ilaahay ka cabsada social media waxa gubaya dadka isku gubay dhalinyaro waa aan deyn dadku waa la isla dhashay walaala la yahay ilkii caraba isku dhaca ceeb ma aha in la isku dhaca ama la isdila ama la islaaya ceeb ma aha laakiin waxa ceeb in la heshiin waay xaq la isiin waay la isu tanaazul waay taasa ceeb ilaahay aan ka cabsano dad baa dadka isu afeeya warnimayo carabkiina ilaaliya carabkan ilaah baa ku siiyay dhawaaqan xoog aan u dhawaaqay aad arkaysaan hadii la iqabto hal mar carabkan la qabto la qadar Allah dhalik aniga waxaan ahay tiirkaas meel taagan u baan noqonaya carabkaas qiimo ku leedahay yaan laga qabanin carabka wallahi ilaahay waa qaban kara waxba kuma dulmiga shay aad u xun waay magaalo kamida magaalooyinka Mandheera ama sub county-yalkan mid kamid ah ayaa nin dhul dad ku dhibay qissa xaqiiqo ah laba bilood ka hor ayay dhacday odaygu waa dhintay hadda islaam marka waa dadka isku laba kooxood ay noqdeen islaam baa cunug laga soo riday la dilay odaygiya ilaahay amarkiis laba usbuuc ama bil kadib geeri baa ku timid sakaraadka soo aan nafta ka bixi rabta ardulkan xaq marka hore qorti igeli ardulkan asaan yeelay kaw naftu ka baxay wallahi waa wax xaqiiqo jira dad badan baa laga yaabaa inay arintaas la socdaan meeshan ku jiraan niman yahuud dulmiga aan deyno wallahi dulmi ma raaga zalim ilaahay muddo dhow buu qabanay مظلوم كان الدعاء مارتي بريديس وأقبل قفك الذلمي بريديس وأقبل دعوة المظلوم مستجابة هلقى عبسدوا يري نبينا صلى الله عليه وسلم مرك أمسك عليك لسانك عرب كان يدتك هلاقة هيه اسك إلالية وحيري صلى الله عليه وسلم وليسعك بيتك قري هذا الجوك قري هذا واسع أكون نغضو هو وريقي اسكدف قري هذا الجوك دان الآن هو وريقي waxyaalaha laga reebay waxa kamid ah fadhi ku diririyada inaan istaajinahay Soomaa islaamku sidii sabab ma qabo fadhi ku dirir hadda corona idin ka reebay corona xataa waa reebi laaya wani meegta gaadiseen kan tatay fata gudini jaarole ganishan tami sadeediyo tin dabarte corona namsuni jeesadani dhiiro gargari fagaada arbinte fatina laka xaafada taga guriina fadhi nabiga yiri sallallahu alayhi wasallam ma intaas corona ma jirin fidna ma ka badbaadi rabtaa dhulmi iyo dambi ma ka badbaadi rabtaa gurigaada joog corona waa ka badbaadi dambiyaad ka badbaadi cudurkanaad ka badbaadi musiibo kale ka badbaadi gurigaada iska joog wixii ku asiibay gurigaada kugu imaadeen wuxuu yiri nabigeena sallallahu alayhi wasallam wal yabki wabki ala khati'atik ku ooy buu yiri sallallahu alayhi wasallam waxaad ku ooysaa khaladkaaga iyo dhaca ka dhacay dunuubta ka dhacday khaladaadka aad gashay xusuuse ooy buu yiri nabi sallallahu alayhi wasallam annaga dimbi ma balahin macsuumiina nahay moogtahay namarda dimbi seenay dimbi Allah bali qarmaanti tanagees wana kala amtu tamma fidas Allah waxan maxaa iigay ruux ka shalaynaya ama ka ooynaya ama ka qowmameynaya naguma jiraba hadan dimbi galna dimbiga annaga saxbu noo yahay marka ikhwaani rabbi aan ka cabsano subhanahu wa ta'ala hada aduunan joogna biri aakhira waxaad la tagi lahayd hada sidiyarso
ورصحيد انت لغا قاتا آخرة صحيد انت لغا قاتا ربنا ساسو النفري الله وحيري وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ورهوي صحيقات صحيح لقاتا وحا خير بدن عبسد إلهينا آخرة لوغا معبسنا أدونك لوغا عبسنا عبسد إلهي هدان كسبنا إلهي أنك عبسنا مظالمت أن دافنا ظلمك أن دافنا أوامرت ما أرتي دينت إلهي أن كهر إيمانين أن راعنا شعب كأننا أن بدبادنا المهن أن بدبادنا والمهن أن بدبادنا المجا عن لغمها هاي المها أن بدبادنا وادركتين مقالوين كأننا نول بمشوا الدقيقة أم بكور هايا دراجة سيء شيء وادركتين المال لما هايا دلنا يرى لما هايا تولد أن هذا السكول لاين أيوة أنا قبنا نغنا أنا سنة نغنا أنا هبلايا نغنا هذا أنكوه إنه دد لو ما هايا دد كان هذا يتجان دد كلا لو ما هايا حيا لي وحنا دلنا دد نماكم السعدان والدجاج بهاللوه بهالميل لو ما ديجان كرب يستجاب دمنبا مركا إلهي أنك يابنا ألا صلوا وسلموا على من أمر الله بالصلاة والسلام عليه فقال جل من قائل عليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين عمر وعثمان عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وعافي مبتلانا وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها يا رب العالمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله قوموا إلى صلاتكم